soomay sodonkeeda dhameeyey rabadaantan dhin soomay sodonkeeda dhameeyey sakadeedana dhiibay. السلام الله عليكم صاحب بدك وتحن برامجكين وهدية ومالك كله يبرامجكي waxaynu tagi doonaa mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo nasiib u yeelan doono inaan ku qabanno maanta barnaamijkeen balse intaynu xagga gaarin waxaynu sii mari doonaa Xayaat Market oo ah taabagaliyaha barnaamijkeen inagoo ka sii qaadi doona hadiidaha qiimaha badan oo ugu talgashay inaan ku abaalmarino asxaabta haleesha su'aalaha yar ee fudud ee soo diyaarinay jawaabahooda saxda ah la socod wanaagsan oo daawasho wacan. Ayuu sugnaatay ninkan tawbada seegay si fiihi lagu sheegay janna waayuu sugnaatay. Ramadaantan dhin soomay sodonkeeda dhameeyey Ramadaantan dhin soomay sodonkeeda dhameeyey sakadeedana dhiibay siduu saatirba sheegay janna waayuu sugnaatay. Sakadeedana dhiibay siduu saatirba sheegay janna waayuu sugnaatay. Sakadeedana dhiibay siduu saatirba sheegay janna waayuu sugnaatay. السلام الله عليكم داوداش قيمها بدن كنت حن برنامجكنا هو هدية ومالك كله وحن كسوقنا دقمة وبر وكم ده دقمة قبل كبنادر وما تنسوي الله تينا نكو قبرنا والله أنا رجنا قبعتياش هدية هليل دونا جوابها السعدة وهل دونا هدية ده باور كنا صار يهديك كله داو شو عن وكفاية سو عن رمضان مبارك مجا سبر مش كاركتد رمضان الكريم بسم الله مجا عبد الرحمن مصطفى آدم كانت صعدة دقمة وبري الرحمن برنامج ساكوري ستان نصيب أو نمبر كعقب ستة سؤال شو جرت له قوتين دونا نمبر هذا مسك إنه سعران وكو ولا تضرب نمبر كأكون نصيب سنست ما شاء الله ولمبر لح نمبر لح إن شاء الله نمبر لح بحكي صراحة شكتها حلقي وكدغن قلي حسبي هنتي وداق الصومالي حلقي الدغن قلي تلقي حسبي هنتي وداق الصومالي حلقي الدغن قلي عدي أنا تقدر سؤال عشان جاوبت ذا لو كنا أفرتي ما صنتها بالسؤال هذا الجواب صح ده اسكت رمضان مبارك مقعد برنامج كاركتر رمضان مبارك مقعد حسي هلول أبو بكر وكما عدير مقدسة إيجا مع حسن دوان دوان البرنامج كان نصيب واي وقتها نصيب نمبر كعقب ستة سؤال شو جرت له قوتين دونا نمبر هذا مسك ناس صار وكو إلا تضرب نمبر كأكون نصيب سنس أفر نمبر أفر ها نمبر أفر وحكو حسن سؤال لعقت لو يقان هك بدأ مقع كلا ليدا حق بدأ أرجع حق بدأ ورتي يفسر بل لعق حجرت لو يقان هك بد لعقتاس مقع كلا لو يقان أجرو أنا أرجع إن أي فرصة عرفت بس جوابته واحد ستا حق بدأ أرجع كسين ورالو يا لعقتن أنت بدن سوماليدا عادوا استعماشه وقوية هك بد لو يقانا كوفرنا مقع كلا لو يقانا مقع كلا كوفرت لو يقان كي وقوي هذا كسين كي كوفرت أنا سأقول فسيرك دورا يا مرك هذا مهزج أركل أسيني عمرنا أشت ما صدق رمضان مبارك مقع برنامج كاركتر رمضان مبارك مقعد محمد عبد الله حسين برنامج كان برنامج عدو في عن ودليرتك وحرنتها ما شاء الله برنامج كوري سودان نصيب أنا بركة عقب ستين سؤال شو جرت له قدين ده أنا نمبر مسك ناس سعران وكو إلا تدور نمبر كنسيب كايا لمبر نسيبك ولا لمبر لح نمبر لح أكو حسنا شكل السنة دي لقى ديوان قليا أما لا دردر قلي حسبك أنت وداق مسؤولي
sanadkii la diiwaan geliyey xisbiga hanti wadaagga laga dhaqan geliyey dalka Soomaaliya xisbiga hanti wadaagga wallaahi su-aashaas jawaabteeda haddaad isku dayo waa 1 Julaayo 1976 1 Julaayo 1936 aad iyo aad jawaabtaas sax misle والله sidaan filayo boqolkiiba 50 boqolkiiba 100 ma dhigi karo sida ila tahay waxay daawadaan qabaata jawaabta ka bixiyo inta waxaan leeyahay abaalmarinta ugu talgashay xayad market oo barnaamijka taabagelinaysa waata daawadayaal mar hadduu ka qayb qaata halaala jawaabta saxda wuxuu leeyahay abaalmarinta ugu talgashay xayad market oo barnaamijka taabagelinaysa waxaan ku guuleystay receiver astaan hambal yaa kulana soo dhaw ku soo dhaw barnaamijka hadiyada astaan TV magacaaga barnaamijka aragtid Cabdullaahi Cismaan waxa waaye reerwaabiriyaan ahay waxa waaye barnaamijka muddo dheer aan ku taxanaay in badan aan rabay inaan ka soo qayb galo maanta maasha Allah aad aan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkiin barnaamijka ka wareysid waa nasiib oo nabarka qabsatid su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miiska noo saaran waa 1 ilaa 7 oo nambarka lixaad uu ka maqan yahay nambarka nasiibkaaga number 2 laba waxa ku xusan waxa sheegtaa inta sano uu socday halgankii Axmed Gurey saan u maleynayo waa 14 sano 14 sano maxaa si leedahay ku dhihi doonaa sax maxaa filaysaa in rajo fiican aan leeyahay maanta daawada halka qayb qaata jawaabta ka bixiyay sax 14 sano halgankii Axmed Gurey inta uu socday waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talgashay xayad market oo barnaamijka taabagelinaysa waxaa daawadayaal mar hadduu ka qayb qaata halaala jawaabta saxda waxa uu sugaaba waa abaalmarinta ugu talgashay xayad market oo barnaamijka taabagelinaysa hambal yaa kulana soo dhaw Ramadaan barak magacaaga barnaamijka aragtid waa ku soo barnaamijka ku soo dhawaad Saciid Cabdi Khadir la magaciisa 3 barnaamijka ka wareysan nasiib nambarka qabsatay ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miiska noo saaran waa 1 ilaa 7 oo nambarka labaad iyo lixaad ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambar 4 qabsay nambar 4 waxa sheegtaa lacagta loo yaqaan hagbad magac kale leedahay lacagta hagbad magac kale loo yaqaan xadbada lacagta dollarka Amerikaanka aad ma santa Saciid Balsmaan halala jawaabta xad isku dagaa kaga mataxilnayna soo dhaw Ramadaan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid Ramadaan Kariim waa barnaamijka waxaan ku arkaa si wanaagsan ma sha Allah aad iyo aad magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Axmed wallahi barnaamijka ka wareysan nasiib oo nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miiska noo saaran waa 1 ilaa 7 oo nambarka labaad iyo lixaad uu ka maqan yahay nambarka nasiibkaaga hal mar igu celi adoor raalli 1 ilaa 7 nambarka labaad iyo lixaadna ay ka maqan yihiin number 5 waxa ku xusan waxa sheegtaa waan ku arkaa maxaan kugu arkaa indhahaaga igu aragtaa indhahayga yes maanta daawada halka qayb qaata jawaabta ku bixiyo sax wuxuu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayad market maanta daawada mar hadduu ka qayb qaata haleelo jawaabta saxda wuxuu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayad market oo barnaamij taabagelinaysa hambal yaa ku leenahay soo dhaw Ramadaan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Abubakar Cali Maxamed Ramadaan mubaarak barnaamijka waa raadin jiray laakiin maanta nasiib u yeeshay su'aal ii weydiiyo waan ku faraxsanahay hadaba maanta nasiib u yeelatay maxaad filanaysaa islada insha Allah guulaha filanaysaa waa tahay barnaamijka ka wareysan nasiib oo nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miiska noo saaran waa 1 ilaa 7 nambarada ka baxay waa 2 5 iyo 6 nambarka nasiibkaaga waxaa doortay number 1 waxaa sheegtaa magaalada ugu kulul magaalooyinka Soomaaliya waa Gaalkacyo aad u mahadsan tahay balse wada hadal jawaabta isku dagaa kaga wadaan Ramadaan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid Ramadaan Kariim magacayga Ibrahim Cabdiqaadir Maxamed barnaamijkan waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka ka wareysan nasiib oo nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miiska noo saaran waa 1 ilaa 7 nambarada baxay waa lambar 2 5 iyo 6 nambarka nasiibkaaga number 7 waxaa ku xusan waxa sheegtaa xilligii uu madaxweynaha ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan wuxuu ahaa 1960 ilaa 1967 1960 ilaa 1967 xasalaada waa lagu dhihi doonaa guulaan rajeynaa insha Allah guulaan rajeynaysaa hadaa ku dhaan aad u mahadsan tahay jawaabtaada ma ah jawaabta saxda iska bixi kartaa maxaa nan leedahay waan iska bixinay kullee iska bixinay
هذا داوديال ما دام كثر قطعه على ليش وقت السحبة وحوليها بالمرة وبتلقى شيء حد مركز برامج تابع الناس بلاقوا ما دام وكقب قطعها على ليش جابت السحبة سؤال شاويتيني هاد سؤال شان بركز طلعت وحوليها بالمرة وبتلقى شيء حد مركز برامج تابع الناس هم بلاقوا كلنا رمضان مبارك ما عايز برامج كاركتر برنامج شيء أدي أو حرنا يا جوجا اللي مدوا عبري أنا قصدي بينا يا ساكورس برامج كان نسيب أنا بركة قفزت سؤال كجرت لقيتين دونا نمبرها تمسك الناس عارن ونمبر كو نمبر صدح نمبر أفر نمبر كأكون نسيب سنس نمبر كو حاشك تام قالوا وكلول صومالي صومالي أنا بوساس هذا ما سنتابل سماد هالين جواب صح هذا اسكت جوابك يا جماعة علينا رمضان مبارك ما عايز برامج كاركتر رمضان مبارك ما عايز برامج كاركتر رمضان صومالي رمضان مبارك عددان برامج كوا نصيب أنا بركة قفز سؤال كجرت لقيتين دونا كو لا صدح يا أفر نمبر كنسيب كا طبعا كو صدح يا أفر يا أفر مت كم ده نصيب طبعا نمبر كو نمبر أفر إيه نمبر صدح مت كم ده أكون نصيب نمبر صدح أكون نصيب ترى هذا ويلش النبي إمسى هاي ويلك ناولش لحق هاي هذا ما صدق اسكت دقائق بس ما هذا جاوبت حدا اسكت دقائق كيوم تعلينا سودو دان مبارك ما عايز برامج كاركتر السلام عليكم مقعي وكمال عبد الله محمد عليكم السلام كمال برامج كوريس انا سيب انا بركا قبس سؤال كجرت على قوتين دونا نمبر مسكين سارن نمبر كو صدح يا افر نمبر كنسيب كاغا لمبر لبو كو صدح يا افر لمبر كو حشكتا مقالد كلول مقالوينك سومالي مقالد كلول waxa waaye مقالد Soomaali Soomaa waa tortoro waa sandaabal samad hal jawaabta xada isqtay Ramadan mubaarak magacaysa barnaamijka aragtid Ramadan Kareem magacayga wareen maxaa uu karnoor magacayga macna Bakar barnaamijka ka wareysata nasiib waxa filayaa waqti fara badan in barnaamijkan qayb ka ahayd aad iyo aad sanado badan ma sha Allah sanado badan adiida fiican inta ugu badneed waa guuleysata fila inta ugu badnaa laakiin markuu barnaamijka oo cusbaa waxaa umaleynaa hal mar ama laba mar ama inaa guul dareystay inta kale laakiin waa kala guuleysanaysa kan maxaa rajeynaysaa kan iyo waxaa rajeynaa haddii aad guul aad baratid waxaa waay guushile inaa sii wadaajo inaa sii wadaajo jeceshaa marka inaa guuleystaan jeclaa insha Allah su'aalaha miiska noo saaran waa kow saddex iyo afar nambarka nasiibkaaga igu celi kow saddex iyo afar kow saddex iyo afar nambar kow waxaa ku xusan magaalada ugu kulul Soomaaliya magaalooyinkeeda magaalo mise gobol Soomaaliya dhan meesha ugu kulul Soomaaliya meesha ugu kulul waxaan umaleynaa haddii aan qiyaaso ama isku dayo luuq ganaane ganaane waxaad leedahay lagu dhihi doonaa walaahi wixii soo baxo wixii ku soo baxo ma ka shakisantaa su-aashii jawaabteeda mise waa كلي ورجينو إنا أو رجيني واحد بدنا أكفايد إن شاء الله. ما تهداود ذلك قبل غاتا جو اليوم مستحاول حول الله هذا المرة يمكن بسيط حياة ماركت وبرامج كتاب كل سامبلية كلها. وتهداود ذي المرة دي أركتان إنك قبل غاتا هو هلا لي جابت صح ده واحد سوق سامبوا. قبل المرة أنت قدرت تسوي حياة ماركت وبرامج كتاب كل الناس. سامبلية كلها. هذا بس رمضان مبارك magacaysa barnaamijka aragtid barnaamijku aad buu wanaagsan magacay waa Isaaq Ibrahim Maxamed barnaamijka ka wareegsan nasiib oo nambarka qabsato ku jirta lagu tiin doona nambarada miska noo saaran waa 3 iyo 4 nambarka nasiibkaaga 3 iyo 4 ma tiri nasiibkii waxaan macnaha ka dhigayaa 4 waxaa sheegtaa lacagta hagbada loo yaqaan magac kale ee leedahay lacagta oo sarifka macnaha lacagta hagbada loo yaqaan magac kale ee leedahay waa qalaad aan waqaana lacagta sarifka Soomaaliya qalaad هذا ما سنتها بالسؤال هلا جواب صح اسكت دقيقة ما تعلم رمضان مبارك مقعد برنامج كاركتد مقعد ويونس مالي إبراهيم يونس برنامج كورس أنا نسيب أنا بركة قصة سؤال شو جرت على قوتين أنا نمبر مسكين ناس هارن أنا برسدح يا أفر نمبر كنسيب كايا نمبر سدح عاشك ترى هذا ويلش نبي أفر ما سنتها اسكت دقيقة بالسؤال هلا جواب صح هذا ما تعلم رمضان مبارك مقعد برنامج كاركتد
cabdinaasir ismaaciil buule cabdinaasir barnaamijka ka wareysa nasiib waa nambarka qabsatay su-aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa nambar 3 iyo 4 nambarka nasiibkaaga 3 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa tirada nabiga wiilashii nabiga sallallahu alayhi wasallam 9 ما سنت بلسوم هذا جواب تحت اسكت رمضان مبارك مقعد سب برامج كاركتد رمضان كريم عادي هذا ونك مقعي واحد عبد الحميد احمد داير هذا انه محاله لها برنامج كان بدن ودنيناي وانت دالكم الحمد لله هذا فرح سنه برنامج كوريس نصيب وانا بركا قبستي سؤال ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa 3 iyo 4 nambarka nasiibkaaga 3 waxa ku xusan waxa sheegtaa tirada wiilashii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam 3 waatahay daawadayaal ka qayb qaataha jawaabtuu ka bixiyey waxaa sileedaa lagu dhihi doonaa wallaahi inaan wax ka qaataan rajeynaa insha allah inaa wax ka qaadataan rajeynaa aad iyo aad waatahay ka qayb qaataha jawaabta ka bixiya masaxaaleeya abaalmarinta inta lagu saxeed marka barnaamijka taabagelinaysa waatahay daawadayaal mar hadduu ka qayb qaata haleelo jawaabta saxda waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayaat market sida aad wada filinayseen haatan waxa uu ku guulaystay hambaliya ku leenahay waxa in badan raadinaa idoo socdo intaan ahayn inaan mar hore imaado ahayd aad ugu faraxsana soo dhawaad maasada Ramadan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid ku dhawaad barnaamijka magacayna Abuukar Cabdullaahi Aadan waaye barnaamijka ka wareysan nasiib nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa nambarka qure hatta noo soo haray waana nambarka 4 wax nambarka 4 ka waa isku dayay bal su'aalaha leeyahay waxa leedahay wasku daray insha Allah warjeena inaan guuleysto waata toosan ku weydiin su'aasha waxay tahay lacagta hagbada loo yaqaan magac kale ee leedahay ama magac kale ee loo yaqaano lacagta cash marka la sarif Soomaa lacagta hagbada magac kale oo leedahay jirto hagbada waxa loo yaqaanaa waqooyi gobolada koonfur magac kale isticmaalaan magac kale ee loo yaqaano magac kale loo isticmaalo ma aqaano laakiin EVC ama dahabka waxyaalaha saas oo maahan wax kale ma waa sidaas ku dagaaga balswad halal jawaabta Ramadan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid Ramadan Kariim magacay Maad Cabdi Xasan barnaamijkan waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta barnaamijka ka wareysan nasiib waa nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miskiin oo saaran waa nambar kaliya qura afraad oo toos u noqonaysa su'aasha lagu weydiiyo waa uga lahay waay waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaa magac kale ee loo yaqaano lacagta hagbada oo yani lacagta bedelka sarfaad waxaa jirto lacag loo yaqaan hagbad oo gobolada waqooyi laga isticmaalo markii koonfur laga isticmaalayana magac kale loo yaqaanaa magacaas waxaa loo yaqaanaa lacagaha la bedelo yani sarifka loo yaqaanaa aad oo mahadsantahay balsmaad halen jawaabta iska daga Ramadan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid magacii waa maxamed ismaan aadan maxamed barnaamijka ka wareysan nasiib oo nambarka qadsiyaas ku jirta lagu weydiin doonaa balse aad waxaa nasiib u yeelatay nambarka afraad oo qura su'aasha ku jirta ahayd sheeg lacagta hagbada magac kale loo yaqaan lacagta hagbad magac kale loo yaqaan shilin Soomaali mahadsantahay isku dayga balsamaad halen mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid Ramadan Kariim magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed barnaamijka aad u fiican yahay qaadir saa ka wareysa barnaamijka nasiib oo nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa nambarka afraad oo qura ah oo su'aashiisa ilaa laga jawaabi lahayahay waxa uu dhacaysaa sida tan waxa sheegtaa lacagta hagbada magac kale loo yaqaan lacagta hagbada shilin Soomaali mahadsantahay balsamaad halen jawaabta saxda Ramadan mubaarak magacaaga barnaamijka aragtid Ramadan Kariim magacaygu waa Maxamed Axmed oo ku faraxsanahay barnaamijkan barnaamijka ka wareysan nasiib oo nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa nambarka afraad oo qura waxa uu dhacaysaa su'aasha sida tan sheeg lacagta hagbada magac kale loo yaqaan lacagta hagbada magac kale loo yaqaan hagbad ma aqaano lacag le waa aad oo mahadsantahay isku dagaa barnaamijka ka wareysan nasiib oo nambarka qabsatay su'aasha ku jirta lagu weydiinaa balse hadda nambarka afraad qura meesha noo saaran nambarkaas oo ah sheeg lacagta hagbada magac kale loo yaqaan daa isku day su'aashaasi ayuuto ما تهداود على قواتها جوابتك كل حين ومساحة كلها والمرتب تلقى حياة ماركت وبرامج تاجل سامبليا كلها مرة هدوك قبقتها على جوابت صحدا وحوليها والمرتب وقلت لك حياة ماركت بل أنكو يرو سؤالي سوكو كرتيرا يوتتا العقد وحوي dadka Soomaalida maaragt muqdisho la sugu wadiyay mid mugta marka hadaladii waa isdhaafsan anaga hadal naga qaata anaga hadalan ka qaadana si
si wanaagsan saasaa marka hadalladaas canjeeradoo kale luxuuxay leeyihin annaga waxaan leenahay maarata canjeero waxyaaba saasoo kale hadallada keenaya marka in waqooyi laga isticmaalo hagbad dhanka koonfurna ayuu ta tahay taasaa ogeed si fiican manaha hadalladii aan kiimaad maarata mar walba waxa aan u naqaan wax kale wax ku yaqaanaan marka ayagoo weliba tooda ka dhigaya aad qaa inay sheegto kale teen oo nusaya marka waa laga qabtaa marka saano kale laga faa'iidaa marka kale ma la isticmaalo taas ka tagay hambalyeer ku leedahay waxaanu intaas ku soo afmeeraynaa maanta barnaamijkeena hadiyad qaybtiisii labaad oo aynu ka qabanayno degmada waa bari oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir oo nasiib u yeelatay sidaad u wada jeedeenba toddobadii su'aal aan ugu talagalnay dhammaantood waa ay wada baxeen oo waa lagu wada guulaystay abaalmarinihii aan ugu talagalnay inay maanta baxaan waxaan idin leeyahay nabad iyo farxad ku afura waxaan idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo intaynu mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaddiina ramadaantan insuumay sodonkeeda dhameeyey